goobaha degmada hodan ee diyaarka ah codkaas uu ka dhici doono waa 14 goobood oo degmada hodan ku taal ee guddigu maanta ay soo kormeereen runtii inay doorashada dalka loo asqeeyay inay ka dhacdo qof iyo codka ah maanta ay kormeer ku tagaan xarumaha aan u diyaarinay inay doorashadaas dadka reer hodan ay codkooda ku dhiibtaan runtii annaga haddaan reer hodan nahay farxad gooni ay noo tahay oon iskuubi karno inaan shacabkanaga ugu bishaarayno guud ahaan inay diyaar tahay guddiga doorashooyinku uuna kormeero maamulkii gobolka banaadir ee gudoomiye ku-xigeenku nagala joogay iyo agaasimayaasha ayna kormeeraan aana tusno sida reer hodan diyaar ugu yihiin inay doorashada soo socota qof iyo cod ay ku dhiibtaan cidda ay rabaan oo ay doortaan heer kasta ha joogtee doorashada haddaa maqasho way dhammaatay in uun la yidhaha maalin walba guddoomiye caliya meeshaan maray iyo guddoomiye hebela sidaas ahaa way ka tagtay waxaan rabnaa oon kugu baaqaynaa nidaamka soo socda ee degmadan ka tali doona inaad codkiina aad ku dooran doontaan sidaa darteed waxaa laydinka codsanaa inaad u diyaar garowdaan amnigiina aad sugataan horumarkiina aad sii wadataan si aad codkiina ugu doorataan aadaan idinku mahad celinaa waa idin soo dhoweynaa guddiga goobaha degmada hodan ee diyaarka ah codkaas uu ka dhici doono waa 14 goobood oo degmada hodan ku taal ee guddigu maanta ay soo kormeereen aad iyo aad u mahadsantihiin